markii la doortay bishii koowaad bishii saddexaadba aragtidii iyo yoolashu waxaan u bedelay qorshihii dowladda annaga oo u soo bandhignay golihii xukuumadda aan markaas magacawnay iyo annagoo u sharaxnay oo dhowr maalmood u fadhinay sidee qorshe loogu bedeli karaa yoolasha oo ay u noqon karaan wax dhaqan geli kara shaqo badan oo hawlwadeennadii dowladda iyo wasiiradii ay qabteen waxaa la soo saaray in yoolashaasi ay yihiin kuwa saxda ah aysan ahayn yoolal kambeyn oo ahaa in cod lagu raadinay waxay la jaan qaadeen inay qorshe dowladeed noqdaan qorshahaas laba qaybood ayaa fulintiisa marka dowladda ka go-aanshaheeda laga tago saldhig u ah mid waa beesha caalamka oo deeqaha miisaaniyadda aad ku aragteen ee mashaariicaha qaybtood naga saacida qaybka ahaa waxay nala qaateen inay ku shaqeeyaan qorshaha dowladda oo 8daas loo ku salaysan qaybta labaad bishii 8aad ama 9aad waxaan qabanay shirkii maalgashiga Puntland waxaan u yeernay dhammaan ganacsatada dal iyo dibadba waxaan u soo bandhignay qaabka aan dalkan inuu horumaro dowladnimadiisa iyo meelaha u baahan in la maalgasho labadaas aragtiyood waxaa weheliyey dadkeenna iyo habka dowladdeena u dhisan tahay oo nidaamka dowladnimada casriga aan la nimin aan la jaanqaadi karin sidaan ugu adkaysan lahayn in qorshahaas uu noqdo mid filan caqabadaha naga hor imaanayay ee nidaamka dowladdu markaa u dhisnaa habka miisaaniyadda loogu dhaqmo habka dakhliga loo soo xareeyo in dadka lacagtooda danta guud looga shaqeeyo dabeecad dadkeenu yaqaanay ma ahayn 30 sano burbura keliya ma ahane inta aniga aan ogahay 62 sano oo Soomaaliya ay xor tahay lacag cashuur lagu qaaday oo jid lagu dhiso midda hadda arteen baa ugu horeysa inta aan xogta ogahay jidadka iyo mashaariicaha waaweyn ee dalkan uu dhistay waxay ka imaan jireen deeqaha caalamiga hadda waxaad aragteen jidadka Puntland boqolkiiba 47 waxay ka timid dakhliga dowladda weliba halkaas waxaa ka maqan dakhliga dowladaha hoose ka yimid ay ka mid tahay degmada Garowe oo maanta qaybaheeda aan furnay waxaan filayaa haddii figureskaas raggii shaqada ay ku daraan oo magaalooyin badan oo dowladaha hoose dakhliga ay ku bixiyeen la soo doobo waxaan malaynayaa deeq-bixiyaha u weyn ee dhinaca infrastructure-ka oo lagu yaqaanay boqolkiiba boqol dowladdii 60 sano inay adduunka ka imaan jirtay deeqihiisa inay Puntland xaqiijisay inay yeelaysay Puntland way istaahishaa inay dowlad casriya ku dhaqanto marka la fiiriyo dadkeeda dowlad jacaylkiisa marka la fiiriyo deegaanada baaxadiisa marka la fiiriyo aqoonta dadkeeda waxa kaliya hortaagnaa waxa ahayd iraado ama go'aansho siyaasadeed oo dadka u jihaysa wadadaas caqabadaha u weyn marka laga tago marxaladii aan joognay oo aafooyin dhowr ay dhaceen oo uu ka mid yahay caabuqa oo uu ka mid yahay abaaro baahsan oo ay ka mid tahay ayig ay dalka ku habsaday oo ay ka mid tahay duufaano iyo roobab jidadkii burburiyey oo ay ku jirto dhibaatada argagixisada oo ay ka mid tahay caqabadaha naga soo wajahay dowladda federaalka ah oo aanan u samaysnayn in ay dowlad federaal noqoto si dalkan uu u kala bogsoodo oo u kala koro oo u noqdo degaan walba iyo meel walba inay tahay meel isku filan oo dadkeeda u adeegaysa waxaad halka ku aragteen nidaamka maamul-daadejinta waxaa laga yaabaa dadka qaarka sidaysa kale maamul-daadejinta 4 degmo macnaheedu waxa weeye dowladda dhexe ee Puntland way ka wareegaysaa ee dowladda hoose ee dadkan hadda la dooranayo ayaa maamulaya wey inta hadda la wareejiyay dalkan wuxuu u socdaa golayaasha deegaanka in ay maamulaan waxyaabaha la yiraahdo adeegyada bulshada oo ugu horeeyaan caafimaadka iyo waxbarashada iyo biyaha iyo wixii la halmaala si culayska
دولة دماغ وفضاله أذيك المدة وقوله كنت لا أروح غير زي هكذا نفس الجالسون أيام دولة اللي هو كان غير زي أود يوم المقتشر يوم لها أي كحرس ونباته كنت إزديري زي وسكون مانس وحان قرن سنة أو قرنينا مركين دمك واستعمال دجاجنا المنتجان وحلقة صوبنا دجاجنا حيبها وحي هاي دجاجنا عمرا وحي هاي ضد جناحسي أدون كلام وحي هاي المجالوي ووين ولا أي إلا صوري جناحسي يحرد بدل يدقالة يكبر وكذا استعمال كمان في موضوع أبو واحد إلى السنترال إيكونومي دقالي ونبغى نقول ريماش يسوون ويسيروا ضغط وقوميستون مقدش يقولوا دولة دي مركز تلاقي توصلوا تريان قابلوا وده الدولة ده برا وحب السياسة سياحة الدولة الأوريو وهم الرواية صدق أي سبب نقول ضد حرية دولة دقالة وحدوكتي مرسوي في جناحسي من العسكري إلا أي كيالي سيدي قدام بينين ذلك تاريخ لا تنمو الشيء بدونه وحلا يوشدو عفوني سلاحي مركادينو في رسبار قال يحرميه كيالي مركادينو من عسل العرولا يحاضي حافون سيدي لحيان وشريه كيالي وحي يونان وحي سوب الدليل ضد صبونا والبيته وآلبياء نظيف عبان يسر تعليم يسر وحبرشه يسر وحانون نبي إسلام تدور كلمة كثيرة إذا شعروا يمدون لو رسوا وسيب وسصروا كركوش ما أنتنا عرولا دارجال بايلا يمارك وحق الوصول بالنجي وحليه حرموا عافمات وأود له إلى قليل سميع ما هي المولية كليه هدي أي جبرتو أي دلو يسوع إلى كسر من كلام قليل إلى علمها ككيانا وحاسو حاسمينا وأود الدولة دولة مثلا والله خمس الصح اللوج أرتجاس ضد بدن باع الله ضد كاسلام يسوع وضد أكسور وديدا إن ضد كسومالي الحرية يهرمر جارا ويرهبان إن المال وحيسا وولينا تيهرج أبغى نروح الصومالي وديكتة هيدا هذا يلو سكر وديكا أيه ربع كده حلم يلا جماعة وانا خطر حولي قيمت المرة وقيمت البنت الآن وأنا تهم سنة واحد من المدة هاي واحد وانا ذاتك الموقفتها ومهمة دي تهاجمتها أكيد وني إن البنت الآن أي نقطة ما الملحكنون اللي يأخذون الكيل هذا الرأي يستوى غير كمركع حيستا لأن هذا الأفرتين السنة وجنتين السنة يقولوا مركي نحنا والله بحشي حجبت ويضرب رأس ثلاثين دليش هو أنا واحد كنت دقائق يدك عن الشغل له والمحامي أجد هو حلي اللي ساوى هو الله حيث واحد كان لا لا هو حميد لكن واحد سنوين واحد ربنا وقف معها هو هذا النور واحد ما أنا كشغل هو طلب دور واحد يكون وراء هاي شرف في كلامه وعم بفرح سنة هاي إن قرشاسي والمقضي ذلك هو لدى الدولة من أي فهمان ويكون شقي ضليرية قبل يوم يلبس وجرة وحرمها الدولة كشقية أيا قرشاس رأي مرعها مرنا قرش المقضي وبدل لي هو قبسومي كذا وما أنت أنا هنا مرعب وحنا الجميع ذلك الدولة ما أنت دارك يقودن بوحوي ترى ذلك مركي باهر وذلك أي خالي بيشا أي واحد له شيء يبرق لك هذا ما تقول نمضح ونيش رحلي واحد وربيني بمشغل لكن العرض أخذها يختارك أسلين ضب وضع أي الهيكل معناه ما أبوري سمك واحد معناه أبوري والسياسيين تروح هذا العقل ويسوق بدلية أو من ضمنك أو كأرتف في عينه أو الربيع وحقبته وكسر مريا مركي رويه ضدك إلى دورنا هديكوا الوالد وحقني إيمانية
أنا وصلنا سيرة سجلت قليل يضل لمده هو أن أرتدوا إنتهى مالنا يا مرحلة أسقف الجوجا إن لم عامنا وإن أردت ضل السدان إنه سدان خصيصا وحدكتوريا وقرأ ولدي رجلت المغلسين وحدكتوريا وقبله اللي هو يويكين وحدكتوريا المحمد هلي وأضياش اللي يدكني ومقالويك ووينا أي دعدي إلى لو دور ما كسهلا إذا كعيب وصاصي كان أقول واحد استدلي ما هو وحي ما نهم معجزة ومرشدنا على الجيل إلهي وبركيه دتكي سنة آمنين أو قصرني وحكروا أي عبارتي وقلت وسبي سجاش هذين نقول هيدتك هذين نقول هرمدان الدولة كذا إلى دت ديار ويهين إلى دولة عصرية كل مرادان أو البحنين يحرية يحرقها إلى رما إني أو كوبر أيام مرور المضاد أفضل ويسا أو ربط إلى أسرو من إن أي نور كرامة يكون هذا مركا ما أنت إن أفر سنة كده صوبر منه وحا أي تصالحه دلكن إنه قال ميرو سكسر الممكن دلكي سينا مرنا إلى لا حساب طبعا ملاح دلكي سينا هلان حكت الدولة دلكي سينا هلان مركي دلك دورنا يعني محويها برشها مركي حقنا إلى هلان محاكا غير كلي هذا برتين مرضى مرضورته أو قيمين مصنعين أرنتاس وأرنت بحاجات هو نقول دونتا جيلش صوص هذا هي راميس دلكان يردون عن مستقبل صوص وأرنت هو باهر أنه بليسم إن أكون رشيد فرينتي الأمي مسمى عودريا سياسيين غير كنتلان ودوري إن يدخلوا شقيان وحان كعب سنة إن يدخلوا شقيان دكتور إليه يدوريست بالشدود إن هلان أمن إن هلان هرمر إن هلان أدين بلشو إن هلان كالدنبين إيو كبقى الشرعي هذا أنت الهيري دولة لماذا أنك شكينا معنا بلد يرميش أنت حتى أي دولة قلت لها ما مشنا مهلا يا أديكداس أنت مقلنا من نقول دوتينا اللي عندنا كسر علمه أنت نقول كذا تعسنا أساسي دولة قلت لها ما أنت واحد ديار السطح شعب إذا نهار يشقى هذا إني دمان مسؤولية الدجاج كده السورة إلى ورثة كشخص وحاير الطائر ودكستا وصورة كرامة وحن آل نحن هلا هيرك وبنا عند الدولة كم مقال أي كم تهم قال الأسعار ومفروض كداعي اللي باتوي في لوك يسمى الدكان مرة بدل بقول علمي أرجع الدولة وعديها وحنا الجيريا الدولة إن التراضي أي كل سيد كذا أي وهي لهاي نور كرامة وحان أوبا إلى ما ممكن هكيسة إنه مخلوق ضد مجال الأسعار دي درجة وحان أيد يا دمان كحرونك قلبنا أي كسر صارين وضياشة دخل في مجال الأسعار باقي عالمية إن هالكاس ضد حرية دولة دايو نبض دايو دونيس دايو داش عالم وعلى شيءنا قبل فرق تذكر لوجي سنة كأنه سيهين أنا ورابك نقول وحال شيءنا وحال كأنه عن مسؤولية لما ولا عيد بأسكان أحرب عنا هاي ونحد ونا دمبيري قريب وأنا أيضا فوق ودت دمبيري قريب تذكرنا سيدو وكعة يو أخو أنا ويسناي يو هو عد كلية أمورية إسكوهرمات عيدا وماش كدع المجرم وحوي وشعب مرة قاقوا واحد على إسكوهرمات عيدا ضد وحوقانا تنوي كدوته تنوي حوي وضد أن ويسناي وحبضنا لدعي ووركران ويكدوته أدوان إن أبو في الدول الرجع يسمى قيسة ciidamo ku dagaalamaya lama geysan waxaa meesha ka dhacay waxa weeye waa ula kac u baahan in hoosta laga xiriiro
qorsho ayay ka wadaa dowladda siday u gargaari lahayd dadkaas caalamkana waxaan u baaqaynaa barakaca dadka ku dhacay iyo dhibaatada gobolkaas haysata in gargaar bini'aadamka lala gaaro waxaan rabaa halka inaan war badan ka sheego caawa maahay waxaa ku filnaaday xogihii halka laga sii daayay inta halka joogta iyo inta maqan oo arki doonta shirkii ugu dambeeyey ee magaalada muqdisho aan u qayb galay waan ku matalaya puntland waxaad ku aragteen warbixinihii soo baxay in laba qodob ee dowladda puntland aysan wax ka saxiixan ogolaan labada qodob oo aan diidnay waxa weeye mid waxa weeye habka garsoorkan uu noqonay oo ah garsoor madax bannaan sida aan rabno ku qatomo dastuurka iyo shuruucda annagu aan leenahay waxaa meesha la keenay wax kaa ka duwan oo aanan suuragal ahayn inay puntland aqbasho kolna intii aan garashadayda markaas ahay waxaa kaloo ahaa qodob isna weheliyey habka maamulka dowladeed ee heer federaal iyo heer state loo qaybinayo oo isagoo dhanba u muuqday mid ka soo horjeeda dastuurka puntland iyo dastuurka federaalka hadda aan haysanno iyo doonista iyo caqliga federaaleynta ee dalkani uu diyaarka u ahaa waxaa meesha ka soo baxday qorsho u eg in mar labaad dib loogu celiyo dalka inuu central noqdo oo aan dadkaan u cutumi karin aniguna waxaan goostay awoodayda dastuuriga ma ahayn go-aanada noocaas kale inaan qaato inaan dib ula soo noqdo bulshada maxaa hadda marka nala waxaan insha allah beri soo saari doonaa warqad ku aadan mowqifka dowladdan oo muddadii hadda aan joognay aan ka shaqaynaynayo oo ah sidee ula jaanqaadnaa marxaladda cusub waxaan ula jaanqaadaynaa annagoo ahayn dadkii midnimada soomaaliya dhaliyey dadkii midnimada iyo dowladnimada soomaaliya ka shaqaynayay dadka nidaamka federaalka iyo dowladnimada gundhiga u ah maxaan rabnaa marka bayskeeda annagoo ilaalinayna midnimada dadka soomaaliyeed iyo dowladda federaalka ah qawaaniinteeda iyo shuruucdeeda dowladnimo dowladda puntland waxay hadda kadib diyaar u tahay in ay kula shaqayso dowladda federaalka waxa dastuurka iyo dasaatiirka labada dowladood ay qorayaan waxaa kaloo diyaar u nahay inaan wada xaajood ka galno waxyaabaha dhiban ee hortamidka waxa ugu muhiimsan oo halkaa ka soo baxay waxay ahayd in la rabay dastuurka in la dhammaystiro iyadoo qadiyadii somalilan aan meesha lagu soo qaaday oo ay ka dhigan tahay in gobollada sool iyo sanaag la doonayo in somalilan iyada oo maqan gacanta loo geliyo oo sharci laga dhigo taasna puntland ma aqbal qadiyadda soomaaliya waa qadiyada isku xiran waxa ugu horeeyana waxa weeye puntland iyo somalilan qadiyadooda horta meel in lagu furo dhulka ka maqan ee puntland la soo celiyo dadka puntland dhibaatada loo geysanaya aan ka niraahno xalka soomaaliya siduu imaanayana albaab isku mida laga galay albaabo kala duwan aan laga gelin arrimahaas iyadoo faahfaahsan oo qoraala iyo qodobadeeda ayay imaan doonaan laakiin waxaan rajaynaynaa wixii puntland ay soo qabatay oo ay ka mid ahayd shirarkii daba joogga ahaa ee dowladnimada soomaaliya lagu dhisay shirkii federaaleynta ee 2004 doorkii ka qaadatay dib u soo celinta caasimadda inay dalkan ku shaqayso wixii ay ku bixisay dastuurka ku-meelgaarka ah in laga saaro waktigii ay gelisay oo garow 1 iyo 2 iyo shirki gaalkacyo gaarsiisay himilada ay raadinaysa waxay ahayd inay dhalato dowlad federaal oo dadku waxooda leeyihiin waxna kala leeyihiin dadka ku kala qaboobo dadka aan la baran kicin dhaqaalaha iyo horumarka ma aha in magaalooyinka caasimadaha xataa oo isteedada keliya geersiiyeen qorshaheena waxa weye inuu meel walba gaaro min cirif ilaa cirif dhulka soomaaliyeed guud ahaan iyo gaar ahaan dhulka puntland meel kastoo joogo fariintayda labaad waxa weeye fariinta ku aadan dimuqraadiyadda iyo arrimaha diiwaangelinta hadda socda runtii arrintaas waa arrin bogaadi mudan waa arrin taariikhiya waa arrinta hadda aan lahayn maamulkii waa gaargajino dib baan ugu celin dowladihii hoose tanna waxa weeye taladii dalka
dadkii lahaabaa dib ugu celin oo iyaga ayaa masiirka ummaddan go-aanka gaaray waan uga mahadcelinayaa saddexda gobol ee hadda ka bilaabatay dadkeeda waxgaradka iyo ururada siyaasadda siday uga qayb qaateen ciidamada amniga iyo siday u sugayaan jacaylka ay dadku u qabaan inay isdiwaan geliyaan dadaalka faraha badan ee dadweynuhu bixinayaan intaasba waa calaamad na tusinaysa diilo iyo puntland inay dhaqaaqdo fariintaas waa fariin muhiim fariinta ugu dambaysa in badan ayaa kaabayaasha laga soo haray waad ogtihiin sektaradii ugu muhiimsanaa oo aan waxba laga qaban jirin oo ah waddooyinka eerboorada dekedaha iyo kan ugu muhiimsan oo ah tamarta wax badan baa ka socda laakiin puntland waxbaa ku taagnaan jiray dhib ah oo ay ugu horreyso magaalada puntland hooyada u ah oo dhaqaalaheeda ku xiran yahay oo magaalada boosaasaada ka deeday oo muddo dheer soo socotay waxaa ku taagnaa in dekedaasi ay helin weynay ballaarintii loo baahnaa waxaa ilaahay mahadiisa oo raba bulshada reer puntland inaan u bishaareeyo bishaan janaayo dhexdeeda waxaa bilaaban doonaa dhismihii ballaarinta ee puntland waxay dhici doontaa 22 bishan dhagaxdhigii ugu horreeyay taasoo wax weyn ka tari doonta dhaqaalaha dalka kor u qaadi doonta miisaaniyadda dowladda si adeegga hadda aan bixin adeeg ka badan u waxaa kaloo iyagana rajo weyn laga qabaa jidkii isku xiraya tuurdibi iyo garaca oo aan rajaynayno isna sida ugu dhaqsaha badan inuu bilaabo doono waxaan rabnaa inaan caalamka u sheegno puntland waxay u baahan tahay inay la dhaqanto guud ahaan cid walba oo kala shaqaynaysa horumarka ay ka shaqaynayso waxaan hadda baaq ugu dareynaa dadka maalgashayaasha ee ganacsatada ajnabiga ee soomaalida ee meel walba jira puntland maanta waxay u caaboon tahay sharci ahaan amni ahaan iyo dad ahaanba fursadda dalkan uu leeyahay khayraadkiisa laga faa'iidaysto loogana faa'iideeyo dadkeena waxaan bulshada reer puntland kula dardaarmaya inay soo dhaweeyaan cid kasta oo doonaysa dalkeena inay maal gashato si nolosha adag ee weli degaanadeena qaybteeda ee aan uga baxno isbeddelka dowladnimo isbeddelka nololeed ma imaan karo haddaan isbeddel dhaqaale imaan wax walba dhaqaalaha asal u ah waxaan ka codsanayaa ka shaqaynta dhaqaalaha horumarinta dimuqraadiyadda sugidda amniga dowlad wanaagga inaan ka wada shaqeyno dowladdan hadda ma dhahayno wixii ugu wanaagsanaa aan sameynay ama waxba nooma dhino laakiin wadda hore aan loo qaadin jirin baan qaaday oo aan rajaynayno puntland inay kusii socoto inta aan joognay inta naga dambaysada waddadaas waxa weeye waa waddada sharciga ah iyo nidaamka dowladda waa sax qabaa'il iyo bulsho isku nimid baan laakiin qabaa'il iyo bulsho isu timid oo qawaaniin iyo xeerar aan lahayn ma wada noolaan karto